السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni ugu horeeyay maanta oo khamiis ah taariikhduna waa 23 bisha Oktoobar sanadka 2025 qodobo muhiim ah inuu barnaamijka ku faahfaahinayna qodobada iyo wararka barnaamijka saakaan idinku soo gudbinayno waxaa kamid ah maxkamadda sare ee Israa'iil oo maanta oo khamiisa u fariisanaysa arin aanay jeclaysan Netanyahu iyo kooxdiisu. haddaba maxay tahay maxkamaddu arinta ay ka hadlayso barnaamijkan idinku faahfaahin doona. waxaa soo kale barnaamijkan idinku hayaa Xamaas oo si kulul uga jawaabtay hadal ka soo yeeray Ben Gvir oo ahaa in maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira xabsiyada Israa'iil la dilo. haddaba maxay isugu jawaabeen Xamaas iyo Ben Gvir iyana waan idin hayaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doona hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un jagaxirka ayaa tijaabiyay gantaal ilaa hadda baaritaan ay ku hayaan Mareykanka iyo saaxiibadiisa xilli maalmaha soo socda uu booqasho gacanka Kuuriya la filayo inuu ku tago madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. haddaba jagaxirka iyo Trump iyo xaalkoodu waxa uu marayo barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa. wararkii ugu dambeeyay Gaza waan idin hayaa. qodobadaas ayaanu barnaamijka ku faahfaahinayna inta ku jirno wixii soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa. kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni subaxnimo saakay waa khamiis. barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa saakay sheeko la yaab leh u fadhida. Netanyahu iyo kooxdiisana waxay ku dadaalayaan sidii maxkamaddu ay u diidi lahayd waxay u fariisanayso. talow waxa dhibka ku haya Netanyahu iyo kooxdiisu maxay. haddaba sheeko la yaab leh oo saakay Israa'iil ka taagan ayaynu barnaamijkeena ku bilaabaynaa. haddaba maxkamadda ayaa saakay waxay u fariisanaysaa codsi kaga yimid suxufiyiin caalami ah. u fiirsada waa wariyayaal caalami ah codsi ka yimid in loo ogolaado in ay galaan Gaza si ay adduunka ugu soo tabiyaan xaqaa'iqa dhabta ah ee halka ka jira. Netanyahu iyo kooxdiisa iyagoon wariye caalamiya meesha gelin oo adduunka oo dhan wariyaashiisa aanay taginay maxkamadda dambiyadu waxay ku xukuntay in la soo xiro. haddii ragga kanu meesha galaan wariyayaashan waaweyn ee adduunyada ka socday oo ay waxa rasmiga ah meesha ka jira dunida u soo bandhigaan khalaas Netanyahu iyo kooxdiisu waa ku daayeen alle. marka maxay ku dagaalamayaan inaanay maxkamadda u ogolaanin wax kasta oo hor istaagi kara ayay maxkamadda geeyeen. ammaankooda ma damaanad qaadi karno, khataray saacad kasta ku dhici karaan, wixii meesha ku dhinta, wixii lagu afduubo annagu shaqo kuma lihiin. waxaasoo qareenkii dowladda wadaa. maxkamaddii marka go-aan weli ma gaarin. hadda lagu sii aruurayaa maxkamadda TV-gan ka imid hawshaasaa socota. haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu waaweynaa ee arrimaha ka soo kordhay. telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay garsoorayaasha Israa'iil ayaa waxa ay eegayaan dalab ay u soo gudbiyeen suxufiyiin ajnabi ah si ay u galaan Gaza. haddaba maxkamadda sare ee Israa'iil ayaa maanta oo khamiisa fadhi ka yeelanaysa inay dib u eegto oo ay fiiriso dalabka rasmiga ee uga yimid ururka suxufiyiinta ajaanibka ah oo markaa si loogu ogolaado in ay wariyayaashoodu galaan Gaza, marinka Gaza inay galaan oo waliba halka xaqiiqada ka jirta ay ka soo qaadaan. marka maxay ka socdaan wasaa'ilul i'laam ad-dawliya warbaahinta caalamiga ah. macnaha inkastoo warbaahinta caalamiga markii loo ku wareey galbeedku ay u badeen haddana reer galbeedkiya waxay leeyihiin meesha wax la qarinayaa ku jira. dadkan masaakiinta ee dhibaataysan waa in arikooda runta laga sheegaa. waqtigii la daboolayay Falastiin hal iska laayo way dhamaatay. marka waxay xarumo ku leeyihiin Qudus. magaalada Qudus ay marka xafiisyo ku leeyihiin ururadan caalamiga ah wasaa'ilu i'laam ad-dawliya la yiraahdo
waxay u gudbiyeen marka maxkamadii marka waxay maanta ka fariisanaysaa marka arrinka marka waxa leeyahay ma u ogolaan doontaa maxkamaddu mise maya in badan oo kamid ah dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin way diidi doontaa maxkamadda halka kuwa kalena ay qabaan inay fasaxi doonto laakiin numberka qaba inay diidi doonto culaysyada jira aawadeed ayay u badan tahay sababtoo dawladdu waxay leedahay wixii ku yimaada wariyaashaas annagu mas'uulka mani way dhiban karaan waa la afduubi karaa xaaladdu safe ma aha ma geli karaan marka hadhow xataa hadday inta galaan ay wax ku dhacaan maxkamadda laftirkeedu waxay leedahay marka annagu dawladdu waxay leedahay dawladdu soo idinma sheegin maxkamaddu way qaldaneed inay idiin ogolaato marka doodaa kulul ayaa goordhow waxay ka bilaabanaysaa maxkamadda marka haddii maxkamaddu ogolaato oo dadkaasu galaan maxay soo ogaanayaan waxay soo ogaanayaan wixii rafaada meesha ka dhacay dadka masaakiinta ee la laayay markaasaa nimankii iyaga iska dhaaf Netanyahu iyo kooxdiisa xataa saraakiisha ciidanka laga yaabaa in maaragtay dambiyo dagaal lagu soo oogo marka sheekadu halkaasay maraysaa dhanka kale Xamaas ayaa war goordhow ay soo saartay waxay si kulul u weerartay ninka la yiraahdo Ben Gvir waa faashiya tiri aan waxba u naxayn adduunyaduna ay iska fiirsanayso wuxuu ku dhaqaaqay ninka xabsi inta tagay ayuu kaamera inta meel ku aadiyay maxaabiis garbaha duub u xiran oo jilbaha dhulka u yaalaan inta soo sawiray oo wuxuu haddana ku hanjabaya wuxuu leeyahay nimankan argagixisada waa in lagu dilaa xabsiga dhexdiisa waa dad la soo qabtay u fiirso waa in la dilaa wule xabsiga dhexdiisa waa in lagu dilaa adduunku marka Xamaas waxay leedahay manina iska dhihi kara waxan waa la dilayaa dadka xabsida ku jira marka hal maray reer galbeedku wada qaylin lahaayeen haddii qof muslina sheekada dhaho maxaa la dhihi lahaa ninkan waxba lama dhahayo miya haddaba aan idin tuso marka ninka wuxuu leeyahay Al Jazeera waxay leedahay video ayuu soo bandhigay ninka la yiraahdo Ben Gvir wuxuuna ku hanjabayaa in la tooganayo maxaabiista Falastiiniyiinta ee ku jira gudaha xabsiyada warbixintu way sii socotay waxa leeyahay video cusub oo marka aad dad badan uga careysiiyay cunsurinimada ay ka muuqato ayuu wuxuu soo bandhigay ninka la yiraahdo Ben Gvir mar uu booqasho ku tagay xabsi ay ku jiraan dad Falastiiniyiin wuxuuna ku hanjabay in dadka la dili doono xabsiga uu booqday waxa la yiraahdaa North Shafot waxaana halka uu ka jeediyay hadal wuxuuna ku hanjabay dadka xabsiyada ku jira inay tahay in la dilo inay tahay inaan bal la sii deyn kuwaan u leeyahay hal la dilo oo maartay laga takhaluso marka waa sheeko marka la yaab la waaye ninka wuxuu rabo iska sheegaya waa yahuudi ninka muslimka hadduu hadlana waxaas cid wax weydiinaysa lama arkaa leeyahay marka sidaasay Xamaas ku doodaysaa marka doodaasaa marka taagan dhanka kale gargaarkii ayaa waxaa khaatib billahi laga joogaa Israa'iil weli macbarkii Rafax lama furin hay-adihii gargaarka alaab fara badan oo ay geeyeen meelay martay la yihiin dhibaata iska jirta intaas way socotaa dawladda Mareykankana wufuud kala duwan ee Netanyahu isaga daba celinaysa ninka wasiirka arrimaha dibadda leeyahay ayaa wuxuu leeyahay maaragtay arintan Israa'iil ay wado waxaan la wareegaynaa daanta galbeed waxay weeqaysaa heshiiskii aynu wadnay iyo xabatoojinta marka waxaas wax la dhageysan kara ma aha marka nimankan sababta marka waxa leeyahay joornaalada Mareykanku ay leeyihiin ay wufuudan isaga daba socoto Netanyahu in la bariyo la yiraahdo war waxa kan xabatoojintan aan laga jibinin madaxweyne ku-xigeenkii waa baxay wasiirka arrimaha dibadda bedelaya kuwii hore ergadii iyo wixii way joogaan marka sheekadaas ayaa socota dhanka kale marka Qatar ayaa waxay geysay markab wada teendooyin dadkii guriga ma haystaan roobabkii waqtigoodii bilaabanaya dhibaato jirta marka waxyaabaha noogu daran waxay yiraahdeen meel aan ku hoyano madaxa gashanaba ma haysano teendooyinkii hore wixii meesha loo geeyay waa baabeen marka teendooyinkan Qatar ay geysay ay laga walwalsay xagee la marsiina Israa'iil ma ogola haddaba marka aan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay
markab qadar ay leedahay oo wada 29,000 oo teendhooyin ah oo lagu taageerayo reer Gaza ayaa gaaray dekada la yiraahdo Buur Saciid ee wadanka Masar. marka markabka waa la dejinayaa had teendhooyinkaas wada 29,000 oo teendho waxba kama gasho Gaza malaayiinta qof ay joogta laakiin waa bilow laakiin xagee marayaan taasa marka la isku hayaa murankaas taagan. haddaba qadar xayeysiisa kadib qaybaha dambe ee barnaamijka ayaynu u gudbaynaa. qaybta dambe ee barnaamijkana waxaynu ku qaadaa dhigayno aanu ku soo qaadanaynaa sheeko la yaab leh. wiilkii jagaxeerka ah hogaaminayay Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa wuxuu riday maanta gantaal ka qaylisiiyay Mareykanka iyo saaxiibadiisa Aasiya jooga dhulka la gariiray. muxuu ku soo beegayaa maalmo ayaa ka dhiman wafdiga uu hogaaminayo Trump ee shirka kaga qaybgali doona Kuuriyada Koonfureed oo halka ku wajahan. marka waxa leeyahay jagaxeer fariinu diraya sheekadiisu bilaabay. haddaba qaybaha dambe barnaamijka ayaynu arinta ku faahfaahineynaa xayeysiinta kadib. kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan waxaynu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta oo khamiis ah. haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa ninkii jagaxeer ahaa marka uu maqlo Mareykanka eriyada ku soo dhawaaday madaxdiisii iyo ninka marka alaabtiida la rakib uu yiraahdaa gantaal aan hore loo arag oo hawada ku jiraya oo meesha loogu talagalay ilaa uu ku beegsamo hawada ku feesteenaya ayuu ninkaaga riday. Mareykankii joogay Kuuriyada Koonfureed iyo Japan iyo dhulkan hadda baaritaan ku wadaan ninkan gantaalka uu riday maxay tahay waxan maxay ahaayeen. ninkan wuxuu leeyahay awoodda aan leenahay aan rabnaa inaan tusno macalinka weyn iyo xartiisa oo shir ku qabsanaya Kuuriyada Koonfureed oo deris la marka Kuuriyada Waqooyi inuu nin raga joogo ayaan rabaa inaan tuso kule jagaxeer caadi ba. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arika Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horeysay waxay tijaabisay nidaam la yaab leh oo hub ah oo cusub oo horumarsan. waxaana la sheegay in nidaamkan uu isugu jirayo dhinacyo kala duwan difaaca hawada iyo waliba ka hortagga cadawga la yiraahdaa. macnaha gantaalo diyaarad aan la hawaysan karin in hawada soo gasho iyo gantaalo iyagu markaa weerar ah intaba waa la tijaabiyay. marka ninka marka waxa leeyahay gantaalkaas uu tijaabiyay ayaa hadda aad hadal hayn uga dhaliyay Aasiya dhawaan waxaa ka furmi doona gaar ahaan Kuuriya shir ay ka qayb gali doonaan Mareykanka iyo dalal kale oo halkaan ka furmaya Trump tagi doono. shirka marka ayaa marka waxa looga arisan doonaa khatarta Kuuriyada Waqooyi. marka maxaa laga arisanaa u leeyahay aniga cidii rabtahay soo aadule shir ama iska dhaaf adikeedii taala jagaxeer caadi ba. haddaba barnaamijkayga qodobkaas ayaa ugu dambeeyay adikuna fakari aragti waxa qabtaan noo soo qora inta aan markale barnaamijka lamida ku kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.